السلام عليكم صاحب الدعوة السوداء وهذا هو فيديو كله أو عصوب مقالكنا أنا ما تحكوا سابسيسن هي إديتين وحن ودارك تونا قابك عاد موبيل كاغا وسميسن كرتو سبسكرايب أنيميشن iyadoo waliba ay la socoto loogada channel-kaaga ama sawirkaaga fiidiyoogana wuxuu la socdaa muuqaal hore aan soo dhignay halkan maadaama muuqaalka hore aan idinku ballan qaaday inaan qayb labaad ka soo diyaarin doono marka maanta waxaa la joogaa qaybtii labaad markii aan idin soo duubi lahaa aan hore ugu gudagalna marka muuqaalkeena sida aad subscribe animation ugu samaysan karto hore ayaan soo aragnay maanta waxaan rabaa marka subscribe animation iyo loogada channel-kaaga ama sawirkaaga wixii aad doonto ayaad markaas ku samaysan doontaa si aan u samaysan marka subscribe animation lana socdo loogada channel-keena ama channel-kaada ama sawirkaada hadba waxaan u baahnaa marka laba application koobaad ee Pixel Lab iyo sidoo kale KineMaster labadoodaba waxaad kala dhigi kartaa description videogan oo muuqaalkii hore ayaan idin soo dhigay muuqaalkaas ayaad hoostiisa kala dhigi kartaa ugu hore waxaan u baahnaa marka inaan soo furno Pixel Lab ayaan soo furnayaa Pixel Lab markuu sidan kuu soo furmo textkan mar walba kuu soo muuqan doono waa iska delete gareynaysaa waxaad ugu horan sameynaysaa inaad tagto optionkan afraad kadib halkan waxaad ka sii dooranaysaa marka transparency oo waxaan doonaynaa sawirkeena backgroundkiisa inuu ahaado yacni mid transparent oo aan meeshii aan doono dulgeyn karno markaad transparent ka dhigto waxaad sameynaysaa marka balaaskan qaybtan sare ayaad tegaysaa kadib shape ayaad kasii dooranaysaa muuqaalkii hore haddii aad daawatay waan hubaa midkan inuu ku noqon doono mid aad u sahlan shapeka markii uu nooga soo daro marka waxaan u baahnaa shapekan inaan ka dhigno mid yacni yariisa oo sida taas oo kale ah kadib waxaan sameynaynaa halkan radiuska ayaan tegayaa kadib xoogaaya radius ugu dar ayaan leeyahay oo sida taas ayaan ku daynayaa kadib haddii aad hoos aad u soo dhigi kartaa si aad colorka ugu bedelato oo halkan aad ka bedelan kartaa aniga haatan sidiisa ayaan ku daynaya oo cadka ayaan ku daynaya kadib tigdaas ayaan saarayaa haatan waan inoo samaysan yahay meeshii aan kasoo muujin lahayn subscribe-kii iyo loogadii waxaan kaloo sameynayaa marka inaan shape-kii doorto kadib option-kan dhexe ee saddexan tago kadibna aan sida tan gacanteyda ugu jiid halkan ilaa aan ka helaa marka option ah shadowgaas ayaan tegayaa kadib halkan enable ayaan ka dhigayaa sidoo kale shadowga blue radius ayaan kali 25 ka dhigaya kadib tigdaas ayaan saarayaa haatan waxaan u baahnaa marka inaan soo gashto loogada channel-ka ama sawirkaaga wixii uu doono ayaad markaas isticmaali kartaa tusaale ahaan loogada channel-ka ayaan soo gashanaa balaaskaas ayaa tegaya kadib from gallery ayaan leeyahay kadib waxaabihii ku jiray galleryga mobilkaaga ayuu ku tusayaa marka loogadan ayaan u baahanahay loogadii ayaan doortay kadib sideeda ayaan ku daynayaa oo tigdaas ayaan sii saarayaa waxaad arkaysaa loogada haatan inay ka weyn tahay marka shape-kii aan sameynay kadib waxaad sameynaysaa calaamadahan oo geesaa kuu siino ayaad gadaal u celinaysaa ama u durjinaysaa ilaa aad yacni bartamaha ugu aadinayso sida taas oo kale sidoo kale mararka qaar waxaa laga yaabaa shape inuu ku dhibo waxaad tegaysaa calaamadan layerka shape-kii ayaad loog ku xiraysaa haatan shape-kii maaha mid dhaqaaqaya oo keliya haatan waxaa dhaqaaqaya marka loogadii ama sawirkii aad soo gelisay sidoo kale loogada ayaad dooranaysaa adigoo loogada kuu dooran tahay gacantaada ayaad scroll kusoo sameynaysaa ilaa aad ka helaysa mar kale shadow halkan sidoo kale enable ka dhig kalarkii aad doonto markaas ayaad halkan ka dooranaysaa tusaale ahaan mid ayaan iska dooranaya haatan amaba sidiisa ayaan ku daynaya oo haddii aan madow ka dhigo sidaas uma sii qurux badnaanaya sidiisa ayaan ku daynayaa disable ayaan ka dhigayaa sidiisa ayaan ku daynayaa haatan shape-kii waa inuu diyaarsan yahay waxaan sameynaynaa marka inaan dibad u saarno si aan KineMaster markaas ugu dhid garayno waxaan sameynaysaa calaamada sheerta ayaad tegaysaa kadib waxyaabaan defaultiga PNG-ga sidiis ku daa kadib save to gallery ayaad leedahay waad arkaysaa sawirkii inuu inoo save gareeyay halkan waan isaga laabanaynaa oo haatan waxaan u baahnaa marka inaan soo furanno application-kii KineMaster sida tan ayuu kuu soo furmi doonaa marka uu sida tan kuu soo furmo meelaan project-yaasha ku diyaarsanaa ayuu kuu tusayaa marka waxaan u baahnaa inaan abuurano project cusub balaaskaas ayaan tegayaa kadib aspect ratio-ga aan doonaya markaas inaan ku edit gareeyo muuqaalkayga ama muuqaalkayga sida uu usoo muuqanayo ayaan halkan ka dooranayaa tusaale ahaan haatan waxaan doonayaa aspect ratio-gan koowaad ee 16:9 ah kaas ayaan dooranayaa kadib media browser-ka ayuu kuusoo gudbin doonaa oo wuxuu kaa baahan yahay marka waxyaabihii aad edit gareyn lahayd inaad halkan ka doorato waxaan edit gareyn doonaa marka waxay noqonayaa inaan marka hore background soo doorto halkan ayaan background ka dooranayaa kadib background-kii aan doono ayaan qaadanayaa hadhow ayaan green screen u bedeli doonaa oo aad ay u sahlan tahay tusaalehaan kaas ayaan iska doortay kadib tigdaas ayaan saarayaa markuu background-ku sidan kuu soo galo ugu horreyn intaanan howl kala guda gelin waxaan doonaynaa background-ka inaan ka dhigno green ama blue keliya waxaad ku dulfanaysaa background-kii aad soo dooratay kadib waxaad kasii dooranaysaa halkan background-kii colorka ayaad kasii dooranaysaa oo waxaad imaanaysaa marka option-kan hoose ayaad imaanaysaa option-kan hoose gaduudkan iyo cagaarkan ayaad waxaad ka dhigaysaa 0 kan buluugana waxaad ka dhigaysaa full 255 ayaad ka dhigaysaa buluugana ayaad buuxinaysaa keliya redka iyo greenkana 0 ayaad ka dhigaysaa kadib tigdaas ayaad saaraysaa haatan waxaad arkaysaa background-keeni inuu inoo yahay marka mid blue ah waxaan sameynaynaa marka ugu horeyn inaan haatan soo gashano shape-kii aan soo sameynay ee aan kusoo sameynay Pixel Lab layer ayaan tegaya kadib media ayaan kasii dooranayaa halkan folderka Pixel Lab ee qorta ayaad raadinaysaa waad arkaysaa sawirkii waa kan sida taas ayaan usoo gashan doonaa
sawirka waxa laga yaabaa inuu marka hore ka yar yahay zoom ayaad soo dhasanaysaa si uu markaas aad wax walba u aragto tigdaas ayaa saaraysaa mar kale waxaad arkaysaa marka track koobaad iyo layerka inay kala yar yihiin trackan layerka ayaa dhimanaysaa kadib waxaad sameynaysaa inaad midka koobaad la ekaysiiso kadib marka la tigdaas saar waxaan sameynaynaa marka haatan inaan layerkan inaan ku darno in animation layerka ayaad ku dulfanaysaa marka hore kadib in animation ayaa tegaysaa kadib halkan animation kala duwan ayaa ku jiro markaas midkii aad doonto ayaad isticmaali doontaa adigoo markaas sidoo kale 1 second ku daynaya tusaale midkan ayaan dooranaya kadib tigdaas ayaan saarayaa haatan waxaan leeyahay marka beli ayaan leeyahay beli haddii aan dhaho sida taas ayuu u soo galayaa marka isla markii uu saas u soo galo waxaan doonayaa sidoo kale inay imaado marka subscribe animationkii inoo samaysanayo sidoo kale subscribe animationkan waxaad iyagoo tiro badan oo green screen ka helaysaa isla YouTube-ka haddii aad qaybta searching-ka YouTube-ka ku qorto subscribe green screen waxaad helaysaa iyagoo tiro badan markaas midkii aad danaynayso ama aad ka hesho ayaad la soo digi doontaa aniga haatan mid ayaa haystaa sidoo kale midkan aan haysto muuqaal hore ayaan qaab gift ahaan idinku siiyay muuqaalkaas sidoo kale description video aan idin soo dhigi doonaa oo muuqaalkaas hoostiisa ayaad kala digi kartaa sidoo kale waxaan sameynaa marka in animation markuu sidaas u dhamaado ayaan doonayaa inay iyadana soo gasho waxaan sameynaa marka calaamada play here-ka ayaan halkaas dul geynaya kadib waxaan tagayaa layer media kadib yani waxaan kasii doonayaa marka halkan export ayuu ugu jiraa subscribe animation-ka aan doonayaa marka inaan isticmaalo isagoo green screen waa kan waan ku dul dhufanaya kadib waad arkaysaa halkan inuu inaga soo muuqdo marka isagoo green screen isagoo sidatan uu kuu dooran yahay waxaad samaynaysaa inaad halkan optionadan ka soo bixi doona dhankan midig ayaad dhimanaysaa kadib chroma key ayaad dhimanaysaa kadib halkan ayaad waxaad ka dhigaysaa marka enable ayaad ka dhigaysaa oo isla markii waxaad arkaysaa marka inuu green screen-kii meesha ka baxay sidoo kale tigdaas ayaad sii saaraysaa waxaad arkaysaa marka green screen-ka inuu si nadiif ah uu inooga qaado marka waxaan sameynaa marka haddii aad doonto waxaad sameyn kartaa inaad haddii uu sidataas ka yar yahay amaba uu meelo fiican uusan ku oolin ama meelo fiican uusan ku oolin waxaad sameyn kartaa inaad zoom soo dhahdo soo weynaysato amaba aad yaraysato tusaale ahaan haatan sida taas ayaan ku daynayaaba oo sida taas ayuuba igula qurux badan yahay haatan marka haddii aan play dhaho waad arkaysaa inuu yahay marka mid qurux badan laakiin qaybtan ugu horeysa ayay soo kala daahayaan oo waxaan sameynaa markuu sida taas u maqan halkan ayaan waxaan leeyahay marka iga kadgaray ayaan leeyahay oo sidoo kale gadaal ayaan xoogaa yar usoo durjinaya sidoo kale in animation ayaad ku diri kartaa adigoo videoga dooranaya marka hore kadib in animation kadib waxaad sameyn kartaa markaas inaad in animation-kii aad doonto aad doorato taalan kaas ayaan iska dooranayaa ama markaas adi midkii markaas kugula habboon ee kuula qurux badan ayaad dooranaysaa oo mar walba dooqa adiga ayaa iska leh marka qaybahan ugu dambeeya waxaad arkaysaa inay kala dambeeyaan waxaad sameynaysaa inaad subscribe animation-ka markay sidataas u baxdo inaad sidoo kale imaado sawirkii aan soo sameynay ama shape-kii aan kusoo samaysana pixel lab calaamada maqaska aad tegaysaa kadib waxaad leedahay trim to right ayaad leedahay sidoo kale background-ka ayaad dhimanaysaa asina maqaska aad tegaysaa waxaad leedahay trim to right ayaad leedahay kadib tigdaas saar haatan wax walba si dhammaystiran ama si fiican ay ku baxayaan sidoo kale qaybtan ugu dambeysa waxaad sameyn kartaa inaad aad animation ku darto ama fade in sidoo kale halkan asigana waxaan dooranayaa fade in isla marka uu sii dhamaanayo wuxuu ku dhamaanayaa marka si qurux badan ayuu ku dhamaanayaa kaas haatan waxaad u baahan marka kaliya inaad dibad u saarto waxaad tegaysaa calaamadan exportiga ayaad tegaysaa kadib halkan aad waxaad ka dooranaysaa marka resolution-kii aad doonaysa inaad muuqaalkaaga export ku dhahsato tusaale ahaan full HD-ga ayaan doonayaa kadib export ayaan leeyahay oo haatan wuxuu inuu geli doonaa marka gallery-ga mobile-keena markuu inoo galana result-tigii aan sameynay ama natiijadii wixii aan sameynay ayaan wada arki doonaa waad arkaysaa marka inuu inoo dhameeyo haatan haddii aan balay dhahno wixii aan sameynay inay yihiin wax qurux badan ama wax aan sidaas u qurux badnayn waad arkaysaa marka inay noqonayso subscribe animation yani iska macquula oo aad markaas u isticmaali karto YouTube channel-kaaga waan qaabkaan marka qaabkaad u samaysan karto subscribe animation iyadoo weliba la socoto loogada channel-kaaga ama sidoo kale sawirkaaga mar walba wixii aad fahmi weyso waxaad samayn kartaa inaad comment video aan inagu reebto waxaana jeclaa inaan halkaas kusoo gabagabeeyo muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.